nabad saaxiibayaal waa mar kale iyo wehelka wariyaha tababarka saxaafadda ee taxanaha inuu ahaa qaybtani waa qaybtii 11aad waxaynu uga hadli doonaa shirka jaraa'id ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo press conference ama news conference. qaybtani waxa ay sidoo kale khusaysaa oo anfacaysaa dadka ganacsiga ku lug leh dawladda, ururada bulshada, sportska iyo dhammaan dadka qabta shirarka jaraa'id. waxay sidoo kale faa'iido weyn u leedahay saxafiyiinta oo inta badan warar muhiima ka hela shirarka jaraa'id. haddaba waa maxay shirka jaraa'id? waa mid ka mida tabaha warka loo baahiyo ee ugu saameynta badan waqtigan casriga ah. waxaa saxaafadda soo hor fadhiista qof matalaya dawlad, urur, koox, sports, ganacsato, wadaado iyo shakhsiyaad kale kuwaasi oo usoo diyaar garoobay inay warbixin siiyaan su-aalana uga jawaabaan dadka saxafiyiinta ah ee u diyaarka inay su-aala weydiiyaan. su-aalahaas waxay uga jawaabayaan wariyaal ka socda goobo warbaahineed oo kala duwan. shirka jaraa'id waxa uu la mid yahay waraysiga, hase ahaatee waxa uu leeyahay astaamo gaar ah oo asaga u gaara. qofka matalaya marka dawladda ama ururka shirka jaraa'id qabtay waxaa su-aalo kala duwan oo mawduuca ku saabsan weydiinaya wariyaal horay loogu casumay madasha shirka jaraa'id. waxaase inta badan ay bilowdaan kadib marka la sameeyo warbixin kooban ama qofka shirka jaraa'id qabanaya uu dhiibo warbixin kooban oo ku saabsan waxa shirka jaraa'id uu ku saabsan yahay. tusaale sidan ayuu dhahayaa qofka shirka jaraa'id qabanaya: anigoo ah madaxa suuqgeynta ee shirkadda isgaarsiinta ee Golis ama Hormuud ama Telsom ayaa idinku casumay shirkan jaraa'id. waxaan maanta uga hadli doonaa isgaarsiinta ama adeeg aan horay u jirin oo aanu soo kordhinay oo dadweynuhuna waxtar weyn u yeelan kara markaas. faahfaahinta adeegan cusub waxaad ka heli doontaan qoraalka la idiin qaybiyay. haddii aad su-aalo qabtaanna shirka jaraa'id ayaad nagu weydiin doontaa. qofka shirka jaraa'id qabanaya ayaa sidaasi dhahaya. waxaa jira marka 3 tallaabo oo udub dhexaad u ah markaasi qabashada shirka jaraa'id. waxaa ka mid ah in saxafiyiinta kasoo qayb gashay shirka jaraa'id loo qaybiyo nuqul qeexaya maxuu ku saabsan yahay shirka jaraa'id, maxaa looga hadlayaa shirka jaraa'id. 2 in la dhiibo warbixin kale oo kooban oo lagu iftiiminayo mawduuca miiska saaran. 3 kadib in fursad la siiyo saxafiyiinta joogta shirka jaraa'id kuwaasoo bilaaba su-aalo ku qotoma mawduuca ay weydiinayaan qofka markaasi wakiilka ah ama dawladda ka socda. inta badan dadka qabta shirka jaraa'id oo ay ka mid yihiin musharaxiinta doorashooyinka, saraakiisha iyo xubnaha kaleba ee muhiimka ah waxay leeyihiin 3 ujeedo. marka koowaad, inay dareemaan inay muhiim tahay inay macluumaad la gaarsiiyo bulshada. waxay u arkeen macluumaadkooda inay faafiyaan ayay muhiimadooda u arkeen. 2 inay doonayaan oo in keliya fariintooda ay gaarto kumanaan qof maadaama warbaahinta badankeedii ay joogto shirka jaraa'id. ujeedada saddexaad ee ay yeelan karaanna waxaa ka mid ah inay doonayaan inay iska dhex arkaan wargeysyada, telefishinada, iskana maqlaan warbaahinta kale. ujeedooyinku waa badan yihiin. waxaa kaloo ka mid ah in ujeedadu ay tahay in xog ama information ama warbixin cusub oo dadka ka dahsoonayd loo gudbiyo. qofka khabiirka ah marka ee khabiirka ku ah qabashada shirka jaraa'id kama leexleexdo mawduuca uu saxaafadda markaas ugu talagalay una soo bandhigayo. waxay tani keentaa inay saxaafaddu soo bandhigaan markaasi su-aalo adag oo xasaasi ah walow xiise gaara ay yeeshaan ma marka qaarkood shirka jaraa'id ee uu caroodo qofka shirka jaraa'id qabanaya. shirka jaraa'id marka qaar wuxuu telefishinka u sameeyaa barnaamij soo jiita daawadayaal aad u badan. shirarka jaraa'id ee ay qabtaan madaxweyneyaasha ayaa ka mid ah kuwa saameeya dad badan isla markaasina nuxur fadal badan xambaarsan. sida caadiga ah marka tusaale shirka jaraa'id ma socdaan waqtiyo dhaadheer. dalka Mareykanka haddaan tusaale usoo qaadano, shirarka jaraa'id ay qabtaan madaxweyneyaasha waddankaasi soo maray ee Mareykanka kama bataan 30 daqiiqo. waxaana soo xaadira ku dhawaad 300 oo wariye
qof ka qabanaya shirka jaraa-id noocuu doono ha ahaadee waa in ugu yaraan tababar gaaban uu qabo sida uu uga jawaabayo shirka jaraa-id. haddaba waa maxay doorka saxafiga ee shirka jaraa-id? inta uusan bilaaban shirka jaraa-id waxaa saxafiga la gudboon inuu sameeyo diyaar garow dhinaca nafsadiisa iyo qalabkiisa. sidoo kalena waa inuu mawduuca laga hadlayo uu ka dheregsanaada ama uuse warbixin ka hayaa. waxaa inta badan dhacda in qofka shirka jaraa-id qabanaya inuu su-aal walba marka uu ka jawaabo inuusan mar dambe dib ugu soo laaban. arrintaasi si wariyuu uga digtoonaado waa inuu goob wanaagsan ama boos wanaagsan oo su-aashiisa laga maqli karo uu sii banaysto oo sii fadhiisto. diyaar garowgu waa furaha guul walba oo wariyuhu ka soo hoyiyo shirka jaraa-id. waxaa saxafiyiinta la gudboon markaasi inay qodobadan aanu soo sheegi doono in ay ku dhaqmaan si ay u qabsadaan shir jaraa-id oo nuxur wanaagsan leh amase shirka jaraa-id ay qeyb libaxle ka qaataan. maxaa ka mid ah akhri oo dhuux qoraalka war-saxaafadeedka la qaybinayo. sidaan hore soo sheegnay shirka jaraa-id inta uusan bilaaban ayaa qoraal inta badan la qaybiya ku saabsan waxa shirka jaraa-id ku saabsan yahay. qoraalkaasi si fiican uga dhereg. waxaa qoraalkaasi lagu soo bandhigaa markaasi macluumaad ku saabsan shirka. war-saxaafadeedkaasi waxaa inta badan la qaybiyaa shirka ka hor oo warbaahinta markaasi la gaarsiiyo. waxaana lagu soo bandhigaa taariikhda iyo goobta shirku ka dhacayo. waxaa kaloo uu xambaarsan yahay macluumaad kale oo faa'iida leh. 2 akhri intii karaankaaga ah oo ku celceli qoraalada yaryar ee ka hadlaya qofka shirka jaraa-id qabanaya iyo waxa shirka jaraa-id ku saabsan yahay. macluumaad dheeri ah waxaad ka heli kartaa andhehe qaabab kala duwan oo baariseed, sida adigoo adeegsanaya maktabadda wargeysyadu leeyihiin oo macluumaad badan markaasi ku kaysan yahay. akhri maqaalada iyo bugaagta uu qoray ama ku lug leeyahay qofka shirka jaraa-id qabanaya. la tasho tafatirahaaga. tani waxay suura gelin kartaa in su-aalo laguu diro kuwaas oo macno ku fadhiya. la tasho saxafiyiinta kale. waxaa jira wariyaal badan oo aan tegin shirar jaraa-id oo ay hadda ugu horeyso. hase haatee qaarka tegay ee in badan ku laalaabtay waxay ahayaan khibrad iyo fikrad wayna ka dheragsan yihiin qaababka shirarka jaraa-id looga qeybgalo. shirarka jaraa-id inta badan waxa ay ku tartamaan saxafiyiintu sida ay su-aashooda u gaarsiin lahaayeen madaxda. markaasi waxaa lagaga baahan yahay inaad tahay wariye aad u firfircoon oo marka shirka jaraa-id uu ka qaybgelayo aada ugu dadaala inuu hadafkiisa gaaro. marka la qabanayo shirka jaraa-id waxaa jirta tartan dhex mara saxafiyiinta kuwaasi oo u kala shaqeeya warbaahinta kala duwan. telefishinada ayaa door muuqata ku leh shirarka jaraa-id, taasoo ay ugu wacan tahay dadka shirka jaraa-id qabta oo jecel inay ka soo muuqdaan telefishinada. waxayna uga faa'iidaystaan 2 fursadood oo ah in codkooda la maqlay muuqaalkoodana la daawaday. wargeysyada qudhooda ayaa dagaal ugu jira sidii ay u muuqan lahaayeen. wariyaasha wargeysyadu waxay inta badan ka muuqdaan safafka hore ee goobta shirka jaraa-id, iyadoo qaar ka mid a madaxda shirarka qabtana ay jecel yihiin inay su-aalaha ugu badan ka qabtaan wariyaasha wargeysyada. haddaba waa maxay doorka dadka qabanaya shirka jaraa-id? waxaanu soo aragnay doorka saxafiyiinta. markan waa doorkii ganacsadaha, doorkii mas-uulka dowladda, waa doorkii mas-uulka ururka ka tirsanaa iyo doorarka kale ee dadka shirarka jaraa-id qabanaya. warbaahintu marka waxay xiisaysaa ka qaybgalka shirka jaraa-id. sababta ugu weyna waa helidda nuxur wareed oo qiimo leh. shir kasta ama urur kasta waxa uu qabsan karaa shir jaraa-id oo uu kusoo bandhigayo fikir cusub ama uu uga hadlayo arrin uu markaasi xiise u arko. noocuu doono shirka jaraa-id ha ahaadee waxaa jira agaasin guud oo muhiim ah oo qofka shirka jaraa-id qabanaya laga rabo. waxaana ka mid a qodobada muhiimka u ah: 1 qofka shirka jaraa-id qabanaya inuu soo dhaweeyo saxaafadda. saxaafaddu waxay u baahan tahay goob ay ugu tagto qofka shirka jaraa-id qabanaya. sidoo kale u diyaar garee miis iyo fadhi u sahlaya inay su-aalaha qumaati u weydiiyaan qofka su-aalaha qabanaya ama su-aalaha la weydiinayo. haddii ay intaasiba waayaan, saxafiyiinta weli hawshooda way gudan karaan. iyadoo sidaasi ay tahay waxay u baahan yihiin inaysan ka fogaan qofka shirka jaraa-id qabanaya. kuma jabna shirka jaraa-id qabashadiisa in la fadhiyo oo miis qurxoon lagu fadhiyo. istaag baa lagu qaban karaa, socodna waa lagu qaban karaa. hase ahaatee waxaa ugu muhiimsan saxafiyiintu in ay fursad weyn
iyo janisba u helaan. u suurtageli saxaafadda inay hesho taleefon inta shirku socdo, sababtoo ah waxaa jiri karta qaar ka mida warbaahinta sida joornaalada oo xilligoodii warka looga baahnaa ay aada ugu dhowdahay, aysanna ka gaari karin goobtii warbaahinta inay tagaan. waxaa muhiima inay taleefon warbixinada ka gudbiyaan. 3 u diyaari saxafiga shaah, kafee ama biskit si uu caajiska isaga biyo, maxaa yeelay waqti uma helayaan inay waqti dheer fadhiyaan oo ay casho ama qado ku cunaan, maadaama xarumihii ay ka yimaadeen ay xog badan ka sugayaan. sababta aan u leenahay sidaasi waxa weeye saxafiyiintu waxay inta badan shaqadooda ku dhumiyaan warqabasho ama warraadin, sidaas marka qaarkoodna waxay ilaawaan inay helaan wax energy ah amase tamar ay ku shaqeeyaan. hubi oo xaqiiji in shirka jaraa'id ama goobta aada ku qabanayso shirka jaraa'id ay kula fadhiyaan dadkii wakiilada ama madaxda ka ahaa shirkadaada ama goobta shirka jaraa'id qabanaysa. warbaahinta qaar ayaa danaysa inay sii qabsato warar iyo waraysiyo dheeraada oo shirka jaraa'id ka baxsan si ay u helaan madaxdii shirkadda ama dowladda. haddaba waxaa habboon inay madaxdaasi sii fadhiyaan goobta shirka jaraa'id ka dhacayo si waryuhu uu helo fursad uu kula hadlo. isku day in saxaafadda dhammaanteed hesho qoraalada qeexaya shirka jaraa'id ee soo gabagaboobay, taasoo ay ka mid tahay taariikhda kooban ee shirkadda ama ururka qabanaya shirka jaraa'id. haddii ay jiraan marka fursado sawir qaadid, u ogolow sawir qaadayaasha saxafiyiinta wata kaamirooyinka dhaqdhaqaaq ay ku heli karaan sawirro wanaagsan. waa tahay qaybtii 11aad ee barnaamijkii wehelka wariyaha ee tababarka saxaafadda oo aanu uga hadlaynay shirka jaraa'id ama waxaa loo yaqaano press conference ama news conference. intaasaynu kusoo gabagabaynaynaa. waa anigoo ah cabduqaadir cabdulaahi farayaamo oo idin leh nabadgelyo.